kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelkeena xigashada wararka. fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe noo saar, sidoo kalena kambalelka furo si aad u ogaato warbixinada iyo wararka aan halkan soo gelino iyo macluumaadka. maanta waxaanu idiin haynaa qiso ku saabsan Sheekh Xabiib oo hore loo odhan jiray FG Xabiib, ahaana fanaan hore isla markaana fanka ka baxay, ayaa waxa uu si murugo leh uga hadlay waxyaabaha ku kalifay iyo inuu isaga baxo fanka. Sheekh Xabiib waxa uu codsaday in heesihii hore looga hayay la iska saaro, isla markaana dar Ilaahay iskaga joojiyaan dhegeysiga heesihiisa, maadaama ayuu yidhi fanka waan ka baxay. Sheekh Xabiib oo jihaystay dhanka iyo dacwadda islaamka. haddaba Sheekh Xabiib waxa uu la taliyay walaalihiisa kale ee kula jiray fanka inay ka toobad keenaan, isla markaana uu Ilaahay ka soo hanuuniyo. sida oo kale waxa uu sheegay Sheekh Xabiib waaguu fanka ku jiray inuusan xitaa ogeyn in qabriga la gelayo iyo in la dhimanayo, isagoo oo sheegay in heerkaas uu shaydaanku gaarsiiyey. Allahii ka soo madoobeeyey ee ka soo saaray ee ka soo hanuuniyay ayaa mahadle. haddaba daawadayaal, waxaa nala wadaagtaan qisada Sheekh Xabiib, fanaankii hore ee FG Xabiib, isaga oo ka warramaya waxyaabaha ku kalifay inuu fanka ka baxo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. aad iyo aad baan idin salaamay dhammaan ummadda muslimiinta meel walba aad joogtaan. waxaan live ka ahay magaalada Jigjiga, caasimadda dowladda deegaanka Soomaalida. ilaahay baa mahadle. ilaahay soo gaarsiiyay maanta weliba dhammaada oo waqtigeedii dambe la gaadhay oo salaadii markii baan sugayno. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle. walaalayaal, dee ilaahay way u sugnaatay mahaddan, waayo annagoo dugna uumay baa waxaan raalli ka nahnay in aan dhibkii iyo dhibaatadii aan bulshada u haynay iyo meeshii aan dadkii mataqaana aan dhibaynay inaan ilaahay dartiisa uga leexanno. alxamdulilah, ilaahay baa mahadle. shalay markaan heesayay ee aan raabgaraynayay ee bulshada horkacayay, walaalayaal ismaana ogeyn, warna maana iska hayn. dee waxaa weeye ibliis baa shaqaysanayo ummaddii ilaahay u abuurtay waxaa weeye hortaagan oo u diidan maxaa la lahay sheeg inay ilaahay ka baqaan oo dee ilaahay intay ka cabsadaan dee ay khayrka mataqaanaa ay bulshada horkacaan. ilaahay ibliis baa diidan, laakiin dee ninku ilaahay khayr waafajiyo, dee kolley diintiisu waafajiyaa. alxamdulilah, waa mahadle. maanta anoo nool ba waxaad leeyahay walaalayaal, ilaahay ha laga cabsado, meel walbaa joogtaan ha laga cabsado. waa la dhimanayaa, qabri baana sugaaya, nin walba si baa loo dilayaa. waxaa weeye waxaan ku wada xukunnahay dil baan ku wada xukumanahay oo rabbaaniya oo nin dhaafaynin. marka walaalayaal, ilaahay baa mahadle. waxaan jeclaan lahaa maanta igana codsi ah in maanta aad ii samaysaan inaad iga dhalgaraysaan heesahaygii oo dhannaa aad hayseen kulligood, inaad walaalayaal iga dhalgaraysaan dar ilaahay, inaad iga dhalgaraysaan. walaalayaal, waxaa weeye inaan jiri doono allahu aclam, inaan caawa jiri doono allahu aclam. waxaan leeyahay inaan iscaawada cafino oon ilaahay dartiisa kuga cafin. dee dhallinyarada waxaan leeyahay kulligood waa is wada naqaanaa oo teleefanadii oo wada buuxaan, oo qaar dee waxaa weeye seefka ay wada buuxaan, qaarna mimariga wada buuxaan. waxaan leeyahay walaalayaal, nin walba ninka la sii gaarsiiyo in aan raalli ka ahayn in la dhegaysto. shalay markaan duubayay heesaha, waxaa walaalayaal waxyeelada maan ogeyn, dhibaatadana maan ogeyn, qabri inugu dambeeya wallahi tan maan ogeyn, inaan dhimanaya xataa maan ogeyn. ibliis baa heerka ay gaarsiiyey. walaal, laakiin ilaahay baa mahadle. maanta aanoo dhimanin aan idinka codsanayo walaalayaal, aynu is cafinno khayrka, walaalayaal isku cafinno, ilaahay dartii aan isku cafinno. iga raalli ahaada intaan mataqaanaa aan waddo xun tusay, aan u horseeday, inta magacayga baxsatay ee iyagoo anigu daynaya magacayga baxsatay. walaalayaal, aad baan idin raalli gelinayaa, iga raalli ahaada. waxaan leeyahay maanta waa la wada dhimanaya walaal. adduunyaduna waxaa weeye waa dhammaad, waa gabagabo. ninku ilaahay mataqaanaa noolaysiiyo baa walaal noolaada, ninku ilaahay dee dilana waxaa weeye walaalayaal u dhintay. adduunyadana dee walaal waxaa u nasiib xunin intuu mataqaanaa bulshada u horkacay dhibaato iyo fasahaad iyo wax ilaahay necab yahay, haddana ilaahay intuu halkaa ku dilay, ilaahay dee ilaahay kulley dee ilaahay buu laabanaya, nin ilaahay raalli gelinayn oo ilaahay ku laabtay oo ilaahay ka fara baxsaday baa walaal nasiib daran. fahmaysaan walaalayaal? ilaahay baa mahadle. maanta waxaan idinka codsanayaa si lilaahiya qalbigaan kala hadlaya, haddii walaal leeyahay, haddii ummad muslimiina aynu nahnay, haddii aynu is caawin lahayn, haddii janaaza la isku tukan lahaa. walaalayaal, waxaa ilaahay baa idinku dhaarishay heesahayga ha la liidgareeyo, nin walbo heesteeda haya ha la liidgareeyo.
hana dhiirigeliya walaalayaal walaalayaal haddaan mataqaanaa aan sii noolaado walaal waxaa weeye waxaan diyaar u ahay inaan khayr ka shaqeeyo waxaan diyaar u ahay inaan ilaahay aan ka boqo oo ilaahay waan ka boqayaa maanta halka ma soo fadhiisana haddaan ilaahay ka cabsanayn waxa weeye ilaahay baan isku dhiibay ilaahay iyo anigan dhex taallaa walaal waxaa mataqaanaa ilaahay ka galay marka walaalayaalow idinku igu taageerayna waxyaala dhiirigeliysaan aniga hal hees oo mataqaanaa hadda aan gacan ku hayo ma jirto hal hees oo mataqaanaa qof haya aan garanaya ma jirto hees ma dhegeysto hadda hal sano bar hadda muddo 8 bilood hees ma dhegeysan waxa weeye quraanka ma dhageystaa waxa weeye halka ma mataqaanaa ilaahay uu ka baryaa marka walaalayaal sidaas sameeya tii kale maanta waxa ay marti ah niman walaalahaya oo aan dar ilaahay ku walaalownay dar ilaahay ku walaalownay waxa weeye walaal adduunku waxa weeye waa khiyaali waa been waa sheeko waxa weeye waa naarba loo samaystay marka walaalayaal waxa weeye dadkii hore aan saaxiib ahayn aan ku saaxiibnay fanka aan studio wadaada jirnay aan rasuul wadaada jirnay aan fisqi iyo macsiyo ku jirnay waxaan leeyahay walaalayaal ibliis baan idinku daayay ibliis waan idinka baryaa walaalayaal waayo waxa weeye maanta meeshan taaganay saaxiibo ma ahaan karnaba cidna islama hadalno oo aan qaanay oo hore ah ma jirto haddana waxaan raadiyaa ninka ilaahay ka baqayo ma saaxiibkiya maantana waxay la jooga walaalayaashay walaalkay ay la jooga DJ Deeqsi marna ah maantana ah Sheekh Deeqsi oo in badan bulshada mataqaanaa ay ku taamayeen in wax soo saar iyo waxyaalaha uu sameeyo 2020 maanta happy in new tahay oo ay ku taagantahay maanta 2020 ba ilaahay wuxuu damcay naga raali ahaaday inaan buloonta aan bedelno oo indar ilaahay aan u leexano masaajidada aan camirno aan ka shaqeyno khayrka marka walaalayaal waxa weeye isaga idinku dhiibi teele kale intaas waxaa ii sii dhar walaalka kale ila jooga Sheekh Khalid wala wadi yaqaan magaalada Jijal laga wadi yaqaan ilaahay baa iskaga baray de waad sabarnaa asmaan lahayn haddana waxa uu ilaahay iskaga baray salaadahan wada ognaa masaajidada wada tagnaa waxa weeye islaamtigiisu waa fanaan heesaad ka haysaan heesaa laga hayana waxa weeye ilaahay dartii looga leexda wadiin imaan isaga laftigiisu marka hadda waxaan ku soo dhaweynayaa walaalkay Deeqsi oo ah Sheekh Deeqsi saacad laga bilaabo iskiin baraya insha Allah ku soo dhawaada